xamdi cabdilaahi cali waxa ay ka mid tahay hablo inta badan ka shaqeeya qurxinta hablaha jooga deegaano ku yaala gobolka sool gaar ahaan deegaanada degmooyinka tuulooyinka iyo deegaano kale oo ay inta badan laga soo dalbado. xamdi ugu horeyn bal waxaad nooga warantaa koonfeerkan wareega iyo deegaanada tagtaan iyo waxyaabaha aad haweenka u samaysaan ee dhanka qurxinta. waxaan tagnaa deegaamo ka baxsan magaalooyinka waaweyn sidoo kale meelo baadiya ama kaamam cilaamada iyo makeupku waxaanu gaarsiinaa deegaanada tagtaan ee gobolka sool kuwee ka mid ah. waxaa ka mid ah degmada xudun oo kale, sidoo kale orboogay, sarmaayo, taleex, carooley, yogoori, sidoo kale tuulooyin aad u tiro badan, canjiidoo kale iyo walow la odhan karo iyagu laamigii bay saaran yihiin. waxaa jira meelo kaamam ah oo aada uga fog magaalooyinka aan tuulooyinka ahayn. marka waxaanu gaarsiinaa maykabada, cilaamada, taashashka. cilaanku wuxuu leeyahay dhowr nooc. marka tuuladii iyo magaaladii waxaanu isla sheergaraynaa inay isku wax ay marsadaan. mar walba dee waxaa yimaada wax cusub. cilaanka waan ka sinaa, nashqada u dambeysaan baadiyaha geynaa, magaalada laga marsado, tuulada geynaa, kaamamkana geynaa. makeupka sidoo kale noocyo badan buu leeyahay. noocyada laga marsado magaalooyinka waaweyn sida laascaanood, hargeysa, burco, waxaanu geynaa tuulooyinka miyiga ama kaamamka oo kale. marka anagoo shacabkaygii qancinayna ayaan waqti dheer nagu qaadataa inaan dadkii ka dhaadhicino. waxaa jira dad aan weligoodba aragba. noocyada cilaanada aad hablaha u marisaan iyo maykabyada bal noocyada ay yihiin. horta maykabadu way kala duwan yihiin. maykabadu waa maykabo qeyb waxa la yidhahdaa nalooga keenaa Dubai. waa maykabka ugu dambeeya. mid waxaa la yidhahdaa maykab ee Maraykan, wuxuu nooga yimaadaa dalka Maraykanka. yacni maykabadaas qaaliga ah noo yimaada waxaan ku qancinaa shacabkayaga oo tuuladii iyo magaaladii baan sinaa iyo kaamkii. sidoo kale cilaamadoo kale waxaa jira cilaamo khaliiji la yidhaahdo, cilaamo la yidhaahdo bacweyne, fiino, yacni magacyo aada u tiro badan bay leeyihin, haddana way kala dhisayn dambeeyaan. anaga waxaan ku shaqeynaa dhisaynka dambe muxuu yahay iyo maxaa dadka ku qanacsaan. marka dhisaymadaas ayaanu ku aadnaa tuulooyinka. waxaa keentay inaanu bishii tagno ilaa 15 aroos aan tuulooyinka ugu baxnayo kaamamka, rabitaanka shacabka maadaama aanu sinay magaalooyinkii iyo tuulooyinkii. waxaad sheegtay adeegii koonfeerkii in aad gaadhsiiseen tuulooyinkii iyo miyadii. bal waxaad nooga warantaa waxyaabaha la yaabka leh ee aad aragteen. tusaale ahaan waxaad iga sheekaysay haweenka oo kale, miyiga oo kale, miyiga laga keenayo iyo tuulooyinka lagu aroosayo in aad caqabado badan kala kulantaan. waxyaabaha la yaab kale aad aragtay maxaa ka mid ah? wallaahi waxyaabo badan oo la yaab leh waxaan aragnay iyo aan hadeer aad markaanu soo xasuusano la yaabnaa. nin ooridiisii garan waaye maxaaskiisii. sheeko la yaab leh, nin ooridiisii garan waaye maxaaskiisii. dad badan baa isweydiinaya ninba xaaskiisii garan waayey habeenkii arooska, sideeba u garan waayey? bal xamdi. ninka xaaskiisa garan waayey sababtu waxay ahayd in gaba islaam faamilgiisa ah inoo keentay inan aroosada. inantu waxay ahayd maariin dee dhaqanka soomaalida ee baadiyaha ama tuulooyinkeena. inantii waqti badan ayaanu deg wiilkiiyo gabadhu meel baadiyaha iskala soo baxeen, dee dhaqankii soomaalida waa la siiyey. bacdeen qof faamiligiisa ka mid ayaa noo keenay dee inantii oo maariin ah oo dee midabkii soomaalida. marka tuula lagu aroosayey. anaga waa naloo soo sheegay, waan tagnay, goobtii baanu gaadhnay. waxaa dhacday inantii inaanu dee caqabado badan hortaanu iyadii kala kulanno intaan ninkeedii la gaadhin. inantii inaan maykab u marino ina maykabkii la yaabtay, ay ku tilmaantay dambas oo kale. marka caqabadaas in badan saacaday nagu qaadatay inaan nidhaahno maaha dambas waa maykab. muxuu yahay maykab? su-aalo badan bay ku weydiinaysaa, weligeed may arkin. markaanu tii ka dhaadhicinay inay nagu qabsatay taashkii oo kale, ay shandarawo moodayba. sidoo kale taashkii saacaday nagu qaadatay inaan ku qancino, inaanu bulshada gabdho kale u xidhno siday ugu qanacdo. taashkii way ku qanacday. hablaha waxaa loo geliyaa baalal oo kale, sidoo kale indhaha bahal cadiriyad la yidhahda loo geliyaa, cidiyaa loo xidhaa. markaad inantii baalashii u xidhid, maykabkii u marisid, bahalkii u gelisid, inay baqatoba ay sida looxa maanta halkaa u fadhido, cidna aysan la hadlin. waxay ka fikiraysaa waxan inuu ka dhaco, yacni weligeed may arkin. baalasha indhaha la geliyo kale, sida wax yaroo guluub oo indhaha la geliyo oo isagana, iyo cidiyihii. yacni saddexdaas waxay ku noqdaan mushaakilka ugu weyn halkii la rabay inay faraxdo, inay iyadii baqdin ku abuurto.
ay habeenkii oo dhan halkaa fadhido inay moodo in indhaha laga ridayo. reer baadiyuhu sidoo xaasid iyo waxaa ma yaqaanin, laakiin dadka magaalada waxay ka aaminsan yihiin dadka dhibaateeya. marka iyada waxay moodeen anagu weerar ku nahay, taasina caqabad baanu kala kulanay, laakiin waanu fahansiinay caqabadihii oo dhan. faaraxoo isku soo duduub markaanu ka nimi waxaa la keenay gabadhii meeshii gaafka ee hidiya dhaqankii soomaalida hore, inantiyo de inan dheero inan cad ah. inankiibaa goobta yimi, inantiibuu arkay. inantiisu inan yara aan dheerayn bay ahayd oo de maariin ah, madow ayaan xiga. bacdeen markuu inantii arkay wuu la yaabay, wuu garan waayey. marka inantii inan yaroo gaaban bay ahayd. kabacdi markuu soo ag istaagay dee inantu waa inan dheer, wuxuuba la yaaban yahay taada dherarka marka laga yimaado waxay xidhan tahay. waan gartay gabadhii uu miyiga kala soo baxay ee uu soo calmaday ee dhexdhexaadka ahayd ee midabkeedu maariinka ahaa, gabadhaan ahayn baa loo keenay oo gabadh la dheereeyo, kabadhaa dheer loo xidhay, sidoo kale meygab loo mariyey oo la cadeeyey. qaadan waabay ku noqotay. marka su-aalo badan buu isweydiiyey isaga qudhadiis. dee nin xaaskiisii garan waayena dhibaatooyin badan bay leedahay. isagiiba su-aalo isweydiiyey. inantiina hablihii uu kala soo dhexbixi kari laaya, maadaama dee aroosadu ay ka duwan tahay hablaha kale habeenka arooskeeda. iyadii way yaabantaho isna wuu yaaban yahay. sidee uga dhaadhicisay marka inay xaaskiisii tahay? sababaha looga dhaadhiciyey waxay ahayd in inantii de wadanku hadeer casri yahay, maykab loo mariyey, wax taash la yidhaahdo loo xidhay, kabadhaa dheerna loo xidhay oo taashku wato. laakiin saacado badan kabacdi wuu yaabanaa, wuuna fahmi waayey. waqti dheer bay nagu qaadatay inaan ninkii xaaskiisii dib u barno. yacni wejiguu ku bartay maaha, waa weji kale, in laba weji uu kala barto. waxay noqonaysaa aroosada magaalada waxaa la dhisaa adugu ilaa saacad iyo badh baa hawsheeda loo dhameeya, halka tamiyiga aan 6 saacadood aan hagaajino. wax kastoo aad u marinaysid oo ku weydiinaysaa, idhoonyadu ma garanaysa wixii waxay ku leedahay waxan waa maxay, muxuu yeelayaa. haddana markay fahmaan waxaa dhici karta reero aan 2 sano ka hor dhisnay inay noo yimaadaan, ayna yidhaahdaan saaxiibaday ama walaalkay ama walaashay baa la aroosaya, waxaan rabnaa sidii aad iga dhigtay oo kale inaad ka dhigtid. haddana caqabad kalea jirto, hooyooyinkii inayna qabsadaan. dee waa taqaanaa faaraxoo berigii hore cusbur iyo timir iyo waxbaa la isku dhiqi jiray. haddana hablihii waa la cadaynaya, haddana may caddaan jirin waqtiga. hooyooyinkii waxaa halkaa caqabad nagaga yimaada, annagaba dee saana lagama dhigi jirin inay annagii dood noola yimaadaan. bacdeen aan uga sheekayno in casrigii isbedelay, in waqtigii isbedelay, in kumanaan sano laga joogo. haweenka tuulooyinka iyo deegaanada miyiga ee aroosyadu ka dhacaan aad ugu tagtaan, markii idinka ka hor waxyaabaha ay isticmaali jireen bal nooga war. waxyaabaha ay isticmaali jireen inta nagu maqaalada waxay ahayd cusburka, timirta, qasilka iyo huruuda. afartaasaa isticmaali jireen. aroosoo kale sidee u isticmaali jireen? timirta waa la qooshi jiray, bacdeen gabadha jirhkaa loo marin jiray. huruuda iyo qasilkana jirkaa loo marin jiray iyo cusburka. marka waxyaabahaas isku dhiqi jireen. cilaan baa jiri jiray, la qooshi jiray waqtiyadii hore. cilaankaas waxaa loo marin jiray cidiyaha, yacni meel kale looma marin jirin. idinku maxaad ugu bedesheen intaa markaa? anagu intaa waxaan ugu bedelnay in horta dee waqti walba jiil walba waxbaa soo baxaya. jiilkii isbedelay baan anaguna ka mid ahayn. marka anagu waqtigan casrigaa baan la kowsanay inaan dadka yagii waxaan anagu soo baranay inaan yagiina uga faa'iideyno. waxaad ii sheegtay haddeer in bulshadii aada u soo fahmayso isqurxintan iyo sayloonkan faa'iidooyinka uu leeyahay, bal ka waran haddeer bulshadu say usoo fahmayso? bulshooyinka tuulooyinka aad bay usoo fahmayaan. haddeer ilaa 2 sano waanu ka shaqaynaynay, waana fahansiinay. haddeer waxaa moodaa dadkiina iyagu ku dalbanayaan, halkii inanta laguu soo kaxayn jiray inankii aroosanayaba ka odhanaya inanta muxuu ahaa leebaajo ii soo saar. moogta iyagu gawaarida la hagaajiyo bay arkeen sooma. haddeer qisaan maandhood ku qosolay taleex inanba inantiisii ayuu noo keenay. markaas aroos buu kasoo qaybgalay. wuxuu inantaydan inii keenayaa bishu markay dhammaato waa inaad leebaajo ii soo saarta. yacni isaga wuxuu ka wadaa ii soo qurxiya. markaa de way wada fahmeen. aadna waan ugu faraxsanay horta bulshadayadii inaan wax fahansiino. tuulooyinkii, kaamamkii, xataa baadiyihii baa noo yimaadaa oo dee wixii habluhu ku labisanayeen magaalada ay qaadanayaan. reer baadiyuhuna waxaan leeyahay waa dad aada u wanaagsan oo fahankoodu dhow yahay. markaad wixii aad ku rafaadid, laakiin markaad wixii fahansiisid aad bay u qaadanay.